ودواء يوسف راقي تليها ciidanka cirka iyo taliyaha ciidanka dhulka safiir ku-xigeenka safaaradda ee walaalaha nahay ee Turkiga taliyaha Turksom General Gafar saraakiil xigeenada dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay waalidiinta saraakiisha iyo xaasaskooda dhammaantooda waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waxay inoo tahay maalin runtii aad iyo aad u qiimo badan ay ka mid tahay maalmihii ee nagu soo maray intii la dhisay xerada Turksom oo lagu tababara ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan soo marnay iyadoo saraakiil xigeenno meeshan ay ka qalin jebinayaan. waxaa sidoo kale aan soo martay ururka saddexaad ee maanta ee xafladooda aan u taagannahay qalin jebinta iyaga oo ururkooda koowaad meeshan ku qalin jebiyey iyo ururkii gorgor ee labaad. ururkan oo ah ururka saddexaad ee ka baxa commandoska ee xerada Turksom runtii waxay inoo tahay farxad aad iyo aad u qiimo badan. tani waxay astaan u tahay dib u dhiska ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan waxay astaan u tahay dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qeybihiisa kala duwan. runtii waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu baryaynaa inuu ka dhigo kuwii ummadda Soomaaliyeed sharaf iyo karaamo iyo cizzad u soo celiya. sheekha ilaahay khayr ha siiyo ee qur-aanku uu ku furay aayadaha qur-aanku uu isticmaalay ayaa waxaa ka mid ahay sabirka iyo dulqaadka. sabir iyo dulqaad iyo iimaan haddaan isku darsanno waxaan aaminsannahay inuu dalkeena sharaftiisa iyo karaamadiisa ay soo laabanayso. marka waa sabarteen, waxaan idin leeyahay guulaysta. waxaan rabaa runtii inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo ah taliyaha ciidamada qalabka sida mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa ee xukuumadda mudane xasan cali khayre ee runtii labadoodaba ay ka go'an tahay mabaadi'da oo ah in la dhiso ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidamada quruxda badan aad u jeedaan waxay astaan u yihiin qarannimadeenna iyo sharafkeena iyo karaamadeenna. waxaana runtii nagu hagay hoggaanka ee ummadda Soomaaliyeed ay hadda hayso. waxaa sidoo kale aan rabaa inaan u mahadceliyo wiilasha oo diyaar u noqday inuu naftooda iyo irdigooda iyo sharafkooda inay qarankooda u bixiyaan dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda. runtii qofkii bini aadamka naftiisa bixiya wax ka qiimo badan ma laha. sharaf iyo cizzad Allah idinku karaamiya. waxaa sidoo kale aan rabaa inaan hoosta ka xariiqo waxaad ciidanka Soomaaliyeed oo maanta aad quruxdan aad u leedihiin ka mid noqoteen ee sigoo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed dib u kabasho badan sameynaya. runtii rajadiisana aad ay u wanaagsan tahay oo hoggaan dhalinyaro ah oo aqoon u leh oo durugsan na maanta aad haysataan. runtii waxaa ummadda Soomaaliyeed siduu taliya uu hadda ka dhawaajiyey idinkaga fadhisaa sidii cadowga Soomaaliyeed ee loogu xoreyn lahaa ee dalka ee gudihiisa nala jooga aad u xoreyn laheedeen ama u difaaci laheedeen xuduudaha qaranka.
runtii waxaa mahad u sugnaatay alle ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaas sidoo kale aan u mahad celinaynaa walaalaheena qaaliga ah ee dowladda iyo shacabka reer Turki iyo hogaamiyahooda oo saliimka ah oo wanaagsan Rajab Tayyip Erdogan. waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo saraakiishii idinku tababartay ee Turksom iyo kuwa idinku soo tababarsiiyey waqtiga adag aad soo qaadanayseen commandoska ee dalka Turkiga asbaarta aad ku sugnaydeen ee tababarka idin soo siiyey. waxaana sidoo kale u mahad celinayaa dhiigayga saaxiibkayga Hulusi Akar iyo Yaşar Güler oo ah labadaba wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga iyo wasiir taliyaha ciidanka xoogga dalka ee Turkiga oo runtii iyagana raali ka noqdayaan ee tababarkan qiimaha badan aad soo qaadataan. waxaana saaxiibkeena uu ka mid yahay taliyaha saddexaad ee Turksom Yaasiin iyo Umar Faaruq aad bay u mahadsan yihiin. waqti fiican ay nala soo qaateen. Gafaarna waxaan rajaynaynaa runtii astaan ay u tahay maanta inuu wiilasha quruxda badan oo seminaarkan aan u xirina tababarkan uu qayb noogu yahay. runtii aad iyo aad ayaan kaga mahad celinaynaa. waqti badan aan gelinaysaa mana hilmaami doono insha allahu tacaala. diyaar soomatiin cadowga Soomaalida la dagaalantaan dalkiina u xiraysan diyaar soomatiin aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan u rajaynayaa guul barwaaqi iyo bashbash. waxaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalkii dibaddiisa aan ka codsanaynaa inay ciidamada qalabka sida ay garab istaagaan, niyad ahaan ay garab istaagaan, qalbi ahaan ay garab istaagaan, iyo hantiba ay garab istaagaan. waxa waaye haddaad idinka aadan la soconin waxba ma qaban karaan, laakiin marka aad la jirtaan runtii waxay ka adkaan karaan cadowga ummadda Soomaaliyeed meel kasta uu joogo. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. waqti badan ayaa taagneedeen. waa mahadsantihiin runtii kasoo qaybgalayaashana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.